وعطب هرله oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan kumaandooska waxaana loogu yeeraa gorgor tababar ayay ku soo qaateen Turkiga dibna waxay ugu soo laabteen Muqdisho oo ah caasimada dalka sidoo kalena ah xudunta halka loo soo tababaray inay ammaan ka dhigaan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo uu weheliyo taliska ciidanka xoogga dalka ayaa ku soo dhaweeyay gegida diyaaradaha ee aadan cadde airport ka gadaal soo dhaweyn kooban oo loo sameeyay taliyaha ciidamada xoogga dalka General Odawa Yusuf ayaa u jeediyay dardaaran iyo dhiirigelin ciidamadii tababarka soo idlaystay salaan kadib runtii waxa aad iyo aad muxuu ahaa ii sheegay farxad weyn noogu ah guud ahaanteen inaan maanta halkan ku soo dhaweyno groupkii labaad ee kamid ah ciidamada hadda ka imaanaya ka soo laabanaya dalka saaxiibadaan ah ee Turkiga oo halka tababarkooda ugu soo gabagaboobay dufcooyinka kale oo dhimanna insha Allah taala aan rijay doono saacadaha soo socda ama waqtiyada soo socda inay soo gaari doonaan ma doonayo inaan hadal badan sii dhaho waxaan rabaa aad iyo aad inaan ugu mahad celiyo macallimiintii ciidamada gacanta ku haysay saraakiishii guud ahaan ciidanka Turkiga ee runtii muxuu ahaa ii sheegay oo ugu horeeyay taliyaha xoogga iyo guud ahaan qaranka Turkiga oo ciidankan runtii quruxda badan ee horteena ka muuqday aad arkaysaan soo siiyay tababaro kala duwan in muddaana muxuu ahaa ii sheegay halka lagu soo carbinayay aaminsanahana runtii inay muxuu ahaa ii sheegay ay wax weyn ka bedeli doonaan howlgallada iyo muxuu ahaa ii sheegay waajibaadka shaqo ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay muxuu ahaa ii sheegay guud ahaan gobollada dalka ay ka fulinayaan gaar ahaan la dagaalanka ee muxuu ahaa ii sheegay nimankan nabad iyo nolol diidka ah oo ummadda Soomaaliyeed u diida muxuu ahaa isaga nasashadii idanka Ilaahay waxaan rajaynaa in muxuu ahaa ii sheegay ummadda Soomaaliyeed ay u fi doonto mustaqbal wanaagsan nolol wanaagsan kanaan dul qaadi doono Ilaahay idankiis dhibaatooyinka iyo waxa heesta ciidanka maanta halkaan aad timideenna aad qayb weyn ka qaada doontaan waxaan leeyahay marka ku soo dhawaada dalkiina hooyo aad baan ugu faraxsanahay runtii inaad soo qaadateen aqoon aad muxuu ahaa ii sheegay ku caawi doontaan ama ku saacidi doontaan ummadda Soomaaliyeed ugana saari doontaan dhibaatooyinka iyo marxaladaha ay ku jiraan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Xasan Cali Maxamed Amar Dambe ayaa ciidamada kula dardaarmay kuna dhiirigeliyay inay si wanaagsan u gutaan waajibaadkii loo igmaday waxaana uu sheegay in ciidamadani ay qayb ka noqon doonaan howlgallada lagu doonayo in lagu xasiliyo guud ahaan dalka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo shalayna aan idin soo dhaweynay qayb idinkeena kamid ahaa maantana aan idin soo dhaweynaynaa si niyasame leh runtii oo farxad ku jirto ayaan idin soo dhaweynaynaa insha Allah taala waa daalantihiin waxaan rajaynaynaa insha Allah waxaan u imaanay inaan idin soo dhaweyno oo kaliya ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay idin ka dhigo kuwii anfaca dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda waajibaad cusub ayaa idin sugaayo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa hadda ka hadlay waxaan rajaynaynaa inaad noqotaan kuwii runtii dalkooda iyo dadkooda badbaadin lahaa annagana farxad weyn ayay noo tahay maanta inuu ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dib u dhis ku jira oo sii dhismaya maanta inaan goobjoog u ahaano aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii ummadda Soomaaliyeedna insha Allah taala waxaan ka rajaynaynaa ama ka codsanaynaa in ciidankooda garab istaagaan idinkana waxaa la idinka sugayaa waajibaad adag iyo shaqo adag iyo mas'uuliyad adag inaad gudan doontaan insha Allah taala soo dhawaada aad iyo aadaan u mahadsantihiin sida wanaagsan oo qiimaha iyo wadaniyadda leh dalkiina hooyaad ugu soo laabateen aad wax u soo barateen aad diyaar u tihiin inaad naftiina iyo erdigiina sharafkiina aad u hibaysaan waa mahadsantihiin ku jeer ayaad mahadsantihiin soo dhawaada ayaa idin wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay muddooyinkii ugu dambeysay waday tayeynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxaana tababaro gudaha iyo dibaddaba ay siisay cutubyo kala duwan oo ka tirsan ciidanka xoogga kuwanina qayb ayay ka yihiin kuwii tababarada soo qaatay ujeedada tababarka ayaana ah Soomaaliya oo nabdoon dadkeeduna hurdaan iyaga oo nabad qaba Cabdishakuur Shaasha SBS Muqdisho